walaalayaal maanta waxaynu taagannahay crossroads meel abuud isku dhaafaya geeska Afrika waa la wada socotaanoo dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wadaana warka in suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyaradu iminka iyadaaba badiso baalka aad u akhrida maanta geeska Afrika inuu ku noolahay waxa ka dhacaya waa arkaysaa duruufaha inagu xeeran waa arkaysaa dalalka inagu xeersan oo dariska wadnahayna waa arkaysaa maanta Soomaaliland 30 sano la lahaa lama ictiraafsana oo cadow badan leh kii cadow ugu weyn ahaa ee 8 sano u dambeeyay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyay ee Soomaaliland lahaayeen la ictiraafin ee qofkii salaamo ee ixtiraamaba xiriirka u jarayay ee la dagaalamayay Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor wiigan dhexdiisa security council isaga yiraahdo sidaa yeel waad qasbantahay wax baqal dawladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga damqanaynaa Soomaaliya maamulka iyo dadka hogaamiye iyo siyaasadda talaxooda aanu isaynaayo shacbiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno haddaanu haynana waa u gurman lahayn markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo lababa oo dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo intaan ku arkaa waa ka taraa maantana aad baan uga walaacanay oo uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay eedaana waxa leh dawladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhageysan iyadoo waqtigeedii dhamaaday waxa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dawladdii dhagaha adkeyd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamku rabeen oo caawa xamar nabad tahay oo baladweyne nabad tahay oo gaalkacyo nabad tahay oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaalida ku dhaata dooriyeen wanaagsanaato laakiin danteena ay saseegtay aan colaad shacabka u hayn waxaan amaanayaa siyaasiyiinta ilaa shalay wadada toosan ku soo noqday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday xalay markuu hadlayay mar qura ma qiran qaladaadkiisii mar qura ma xaaban iska dhaafeen ugu xiiqaynaa eenu 4 sano u murmanay Soomaaliland ma tahay karo diyaarado yaari tagin badda waan ka xidhayaa waan qasbayaa ciidan baan soo tababaranayaa maxaa maanta kala hadlaa mar haddii dadkiisii uu xamar dagaal geliyay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool ee baladweyne ku nool ee baydhabo jooga ee gaalkacyo jooga bal 30 sanadood oo waxa maanta aragteen ee maanta dhibaatada iska gaadhay baa naga haysta dawladda xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyay shacab ahaan waxaan ka codsanaynaa in ogaataan inaana dadka nabcayn ee qadanteenu isdiiday waxa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalamka yaabay ay 30 sano naga haysteen madaxdiina iyo dadka idin taliya taana taasaan ku dhaafaya